war maxaa waraha maanta haysa isku maanay anaa war hayo shacabkii Soomaaliyeed ee reer Mandheera war cad bay soo saareen waxay yiraahdeen dooni mayna dadka qoriga qiiqa hayo ama holcaaya la dhex wareegaya deegaankeena dadka Soomaaliyeed ee dariska nala wiil iyo abtigi baan nahay ganacsi baa naga dhaxeeyo 24 saac hana looga baxo dalkana ha laga baxo mana u dul qaadanaya alafu halkan Kenya waa ee dadkaas alafu hana laga baxo ciidamada Soomaalida kama wadaan waxay ka wadaan kuwa qori dabla la wareegayo labada xuduudood dhexdooda degan bay ka wadaan oo ileeyeen guryaha anaga daba warnay Soomaali baan nahay Mandheera iyo balad xaawara waa isku mid dalka iyaga 24 saac waa inay kaga baxaan hadii kaga bixin gacmaha loo tagayna oo kuwaasi ma kuwii Kenya laga soo eriyay ay dawladeenu ka daba gashayba nacam waxaan maqli jiray wiil yar baa hooyadii iyo aabbay isku farabaxsadeen oo kala celi waayay aabow joog hooyo joog markuu yiri oo arkay inay shaqeeyeen inuu mid u eexdana uu ka baqahayo buu yiri hadhowkii oo doono joog waryaa isku ma war baan idin hayaa tusaale yar baan soo qaadanaya libaax baa wuxuu soo dhacay reer ari badan leh laxdii ugu weynayd buu la booday duleedka markuu kula dhacay ayaa dameer gadaasha ariga ku xidhnaa wuxuu ku dhuftay libaaxi bahal haraatiya laxdii baa libaaxi ka dhacday laxdii intuu dib saa dameerka u fiiriyo laxdii dib u qabsaday wuxuu yiri dameer caawa mashquul baan ahay waa inoo habeen kale waxaa jira dad haraati la wareegaya shacabka Soomaaliyeedna waa arkaa waa alxamdulillah hadii shacabkii Soomaaliyeed ku jeestay dadkii haraatiga iyo la wareegay waxyaalaha horumarka Soomaaliyeed caqabada ku ah war heeda kuwaas Soomaan ciidanka dahasoona imaaraadka taas weey Allah ilaahay la garay hubka dhiga heshiis nabadgelyo loo halgamayaa isaleela Soomaaliyeed kala habaawdeena isu soo hilow iyo midnimo saad waxana taana ku hawaasa howraarsan iyo hilinka toosnaay wixii ugu haboon waa inaan hoos u dhuganaahay heshiiska nidaamka habka howlo fududaynta horumarinta guudnimo siyaan heer ku wada gaarno aanu heelanaa neehadiyo howl isugu faana haraadigi isjecel baa midnimo lagu hogaanshaa hubwa lagu halaagsame horta heshiiyaayintii soo hertay hubwa lagu halaagsame heshiiyaayintii soo hertay waryaayahe waranaa war kale idin haya soo daaye maydnan TV-ga iyo raadiyaha iyo adduunka oo dhan ardayda qabsato Soomaaliyeed arag waxay rabeen ardayda intaas oo sanay wax soo baranayeen waxa la rabay ardayda maalinka shahaadada qaadan lahaayeen oo Ilaahay bay tiisatay adduunka wax barashada ma taqaanay deeqaha wax barashada ka qayb qaadan lahaayeen adagi u weynaa waan daraabay odagi u weynaa aabahoodaha oo gurigiisa ka soo baxayeen baan daraab qab ku siiyay gurigi war waa saxda ilma aabood ka weyn ma jiraan gurigooda ha joogan maxay tahay ilmaha fakadka oo aabood ka weyn war heedahay guri joog ma ahan carruurtu waxa la yahay aabood iska barbariyaan oo garka hajijiidan asaga soo dabci doone oo muxuu taas soo korinaya bariiska ugu daldalaya aduu shaayay u diidaya inay adduunka ficil wax la qaybsadaan war anagu handaraabka carruurta ka qaad aan ku ducayne war heedahay waxa maqli jira oday baa lagu yiri war wiilkaagii yaraa waa muraara dilaac waana ilmo yar ee gabadha uu doonayo u guuri markaasuu yiri ilmo yar oo aan u ooyo waa arki jirnay ma ilmo yar islaan u ooyaanu aragno war heeda talow maxay ka wadaa mahmaayadaas waxay ka wadaa waxa la yiri laba jir geel hooyadii inuu ka horeeyana ma ogola inuu ka dambeeyana ma ogola maxay tahay sabab aduu ka hormaro wuxuu ka baqayo horteeda laga qaato waa ka baqaya inuu ka dambeeyana iskala weeyaa maxay tahay ogeelu saasu aqli badanye baba ku aqamire kale u gulaale war heedahay ana war idin haya war allo mi fiican ka yeeri muxuu yahay maanta waxa la ansixiyay sharcigii hanti dhawrka oo maxay la dhawraya hantida la dhawraya baa qof walba hantidiisa isaga dhawranayay hantida la dhawraya waxa weeye hantidii dadweynaha maanta wixii ka dambeeyana qofka xatooyo xoolo dadweynaha lagu soo qabtaa waa xadhig Allah
hana laga xiro haysoran idinkuma arkayse afka buuxso haddii aad tahay mas-uul meeshaad doontaba ka hay maqaamka iyo maamulkee masiir qaran baad sidaa waxaad matashaa bulshada ammaanada meel ha dhigan mudnaantana sii sharciga mujtamaca soomaaliyeed macruufka ha kaa arkeen si ay maxabo u helaan haddii kale wallaahi luqya gacan baa la isku kaajabeen luqya gacan war kale aan idii hayaa war kale aqalkii bahweynta ee odayaasha sharcigii doorashooyinka la dhowrahaya aqalka sare la yaalay khayr allah siiye waa soo gudbay odayaal Soomaaliyeed bay noqdeen hambal yaaleen waaye xagee baa loo gudbiyey waxaa loo gudbiyey xaafiiska madaxweynaha wallahi madaxweynaha war badan iyo saxiixyo badan baa u yaal yaa wax dhan gacanta hoos kor madaxweynaha adkaysaanu ku leenahay qoofigana badso haatan waa xubinteeni maxaa sixid u baahan waxaa sixid u baahan Soomaaliyey markii musqulaha la galo oo laga soo baxo faraha si fiican hal isaga soo dhaqo musqushana hal falaasho biyo badan lagu shubo si jeermiska iyo xanuunada faafa iyo balaayada looga hortago faraha waa in saabuun la isaga dhaqaa ilaahay bay tiisatay joornaalka China laga keenay iyo fayraska boodhayana hal iska ilaaliyo bisinka yaas waxa kaloo sixid u baahan shacbiga Soomaaliyeed inay waaya arkaan oo laga daalo oo laga tanaasulo dawlad la caarido waaya dawladi waa wixii cadaaladda keeni lahayd waa wixii dadka kala qaban lahayd waa wixii dadka isku hayn lahayd waxa halka ayna joojiyeen waa dawlad la dumiyay dawlad dambe dadku yaanay ku kicin intaas sixid u baahanayna waxa kaloo sixid u baahan maamul goboleedyada hoostaga xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ciidamadooda ayaga dhista daraawiish baana la dhahaa tan federaalka ay dhisayso ciidamada qaranna waxay yiraahdaan ma yeelayno marka taas sixid u baahan Allah ilaahay Allah saxaarikaas Allah sax waxa kaloo sixid u baahan ardada Soomaaliyeed gobol walba ay joogaan in aan la marin habaabin oo ay sameeyaan imtixaanaadka qaranka si ay u helaan shahaadada dawliga ah taas sixid u baahan haatan waa xubinteeni maxaad ku talin lahayd waxaan ku talin lahaa ilaahay bay taladu tiisa tahay maamul goboleedyada madaxdooda madaxweynaha loogu yeero magacaas bilaa caleeg sharci ma ahan in laga daayo magacaasan ku talin lahaayo gofartoore wax loogu yeeri anigu waxaan ku talin lahaa kala sarreynta in la ixtiraamo oo qof waliba qofka ka sarreeya ka amar qaato daba istaago madax qaybeedku agaasimo waaxeedka ka amar qaato agaasimo waaxeedku agaasimaha guud ka amar qaato agaasimaha guud wasiirkiisa ka amar qaato madaxweynaha maamul goboleedku madaxweynaha guud ee federaalka ka amar qaato oo la istaago oo la kala dambeeyo si wax inoogu hagaagaan oo waxa diidaysaa Soomaha dimuqraadiyada weerar ku tahay in madaxweynayaalka gobolada oo maxaa la yiraahdaa madaxweynayaalka ay daba fariistaan hal madaxweynaha rabtaa Soomaha alla ilaahay dimuqraadiyada iyo sharciga abuuraysa waxay isku maana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya dan lana ma yeelayno ku filan